maxaa ku sugan in ikhwaaninimo la noqdo maxaa ceebaho ku sugan waxa loo baahan yahay qofka daalibul cilmiga ama xaqdoonka wuxuu u baahan yahay inuu fahmo waxa ku sugan aqwaal muslimiin maxaa yeelay haddaadan jamaacada laga soo farcamay asalkeeda iyo waxa lagu haysta aadan fahmin weligaa been unbaa lagu sheegaa waxba la isma dooriyo isku kutub baa la haystaa baa lagu leeyahay wax lagu kala duwan yahay lama arko waa deegadistii unbaa weligaa lagugu akrinaa laakiin waa inaad fahantaa baadilku meesha uu ka soo askumay sidiisaba ikhwaani nimanka la yidhaahdo akhwaan almuslimiin waxa lagu haystaa waxay yihiin jamaacatu ikhwaan almuslimiin jamaacadaasu waxa weeyaan waa jamaaco ku dhisan una aragta dowlad islaam inay u dambaysay dowladdii cuhmaaniyadaheed ama khilaafa alcuhmaaniya loo yaqaano dowlad islaam taas baa u dambaysay duwalka ka dambeeya oo dib ka istaagana oo dabadooda istaagay oo caalamka islaamiga ka jiraahuna oo islaamka lagu sheegayaahuna waa duwal calmaaniya oo kaafira ah walidaalika ayay jamaacada la yidhaha ikhwaan almuslimiin waxay u istaagtay jamaacadooduna ay ku dhisan tahay waxa la yidhaahdo in dowlad islaama la soo celiyo dowlad islaama in la soo celiyo dowlad islaama in la soo celiyo haadaa waa makmanka inxiraafku meesha uu ka raacay aqwaan almuslimiinka waa meesha uu ka raacay jamaacaadkan kalena sidoo kale oo ku ta'auray oo dhan waxa xarakaad caalamul islaami ka jiraahuna ilaa tabliiq mooyaane kulligood ayagay ku ta'aureen waxa xarakada caalamka islaamka ku jira kulligood waxaa hooyo iyo aabbo u aqwaan almuslimiin ayaga ayayna ka farcameen dowlad islaamu marka ma jirto waxay tahay duwalka la hoos joogaa waxa weeyaan waa duwal gaalo ah islaam ma ahan annaga ayaa raadinayna dowladdii islaamkeed dowlad islaamu ma jirto caalamkan kama jirto ayuu taagan yahay sidaas ayayna isku waafaqsayn imaamkoodiina xasanulbannaana taas ayuu beecada ku qaaday dowladdii masarna ay isugu dhaceen isaguna uu u dhintay oo loo dilay waa fii sabiili daalika ee dowlad islaam in la soo celiyo waana caqiida takfiira caqiidadaas walidaalika ikhwaan almuslimiin waa umulxarakaat almucaasira oo dhan iyaguna way ku faanaan waxa weeyaan in qof walba oo xarakaadka garanaya hore sidaas ayuu ogyahay dabcan inayna dowlad islaamu jirin inaan shareeco lagu xukumin awdaanta muslimiinta hadalkaas kulligiis inuu been yahay waan sheegi doonaa ninkaas aad u jeedaahu waxyaabahaas uu dadka ku baadiyeynaya waxaa ka tirsan inaysan kuweyt ka jirinin shareeco laa dila lishariicati ilaa axwaalu shakhsiya ayuu leeyahy bal ka warrama kuweyduu joogaa arkaantii islaamku tawxiidkii hadday noqoto waa ka ogan tahay oo dadkii xaakimkii iyo maxkuumkiiba waxa weeyaan waxay qirayaan shahaadataynkii mucdamka dacwada ka socotaa waa dacwadii macnaha caamkeeda oo ma garanaysaa oo dadkii ma garanaysaa waa shahaadataynkii dad wada qirsan ka bacdi soo gudub waxa weeyaan salaadii 5 waqti waa laga adimaa waa masaajidii waa macmuura anu kuweyd waan tagay qof walba oo tagana waa arkaa sanduuq zakaad ay leeyihiin oo zakadii yaa ruknigii labaad saddexaada soonkii macnaha ma garanaysaa waad aragteen oo sida loo ifdaarinayo dadka muslimiinta iyo shaciiradaas sida ay tahay iyo maxalaadkii sida loo wada xiraayo xajkii oo xujaydoodu siday u baxayaan oo ay wafdiga dowladda u hogaaminayaan oo araadil muqaddasa ay u aadayaan arkaantii islaamka ayaa ku dhan wuxuuna leeyahay shareeca ma jirto ilaa axwaalu shakhsiya bisa mooyaane waxyaabahaasuna waxaa lagu baadiyeeyey ayay ka mid tahay dowlad arkaantii islaamku ay ku dhan tahay ama in badan ka haysatana in la yidhaha waa gaalnimo waa fikri khaarijiya oo dalaala oo takfiiriya weeyaan yaa yidhi ninku waa inuu shareecada oo dhan wax ku xukumaa fi jamiic nawaaxi alxayaat qofku waa inuu ku xukumaa si uu u noqdo si uu mustaxiq lisamci wadaaca uu u noqdo yaa yidhi waa qofku inuu jamiic nawaaxi alxayaat oo dhan shareecada ku xukumaa maya xukaamta muslimiinta bacda cumar ibn cabdilcasiis ba wixii ka dambeeyaba dadka muslimiinta intooda badan iyo dadka muslimiinta u taliya oo dhanu kaanuu yaxkumuuna bijawaanib min ashariica wa kaanuu yatrukuuna jawaaniba ukhraa ummatu maxamedna kuwaasi la soo noolaatay masalada xukunka bigayri maa anzala allahuna dib baan ka tafsiirin doonaa laakiin muxuu yahay hadalkaanu waxa weeyaan xaakim muslina oo shareecadii ku wada xukumaya lama arkay yaa yidhi xaakim muslina oo shareecada wax ku wada xukumaya kaamil unbaa samci iyo daaca iskale hada huwa fikr alkhaariji maya waxa weeyaan rasuulku sal allahu alayh wasalam waad ogeydoona waa ka odhanaya maa sallu maadaama uu shahaataynka qiraayo salaadiina uu oogaayo
waxa weeyaan waa adeeca oo ka dambeeya arrintaasuna waxa weeyaan tii uu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam oo uu yiri man faraqa al-jamaacata qiida shibrin taaka intii la eg ninkii ka baxa jamaacada famaata miitatan jaahiliya mayta jaahiliya ayuu ku dhintaa ninkaas tii uu lahaa ayuu xasan al-banna kow ku dhacay jamaacadiisuna ku dhacday jamiica harakaadka oo dhanuna taas ay taagan yihiin nin allaala ninkii imaaro iyo daaco iyo bayco ka hoos samaysta xaakim muslina oo meel degan waa faaraqa haadihi aljamaaca jamaacadaas iyo imaamadaas qudriga oo ka jirta deegaankaas bannaanka ayuu ka yahay waana munxarif manhaj salafiyana shaqo kuma laha waa daal mudil ah weeyaan ninkaas waa in la iska jira arrinta noocaas oo kale fiintu wax dowr siyaasiya iyo tadakhulaad siyaasiya midna cilaaqo lama lahan ولذلك شيخ الباني وكيلها من السياسة ترك السياسة سياسة waxaa ka tirsan in siyaasadda laga tago siyaasaddan aad Soomaaliya ku gubteen harakaadkuna oo daanta muslimiinta ay ku gubeen weeyaan waxa uu ku faanayaa sheekha maqaalka qoray qolada jadiidiyada la yiraahdo anigu labadaba xoogaal baan ah wala aan maray halka inaan aad u soo gaarin xagga aqeedada iyo cilmiga faafintiisa waynu ka simanna waynu isku dhowdhow waxba isku madhaano laakiin waxaanu ku kala duwanahay afkaar kale oo dacawiya waayo dacwadoodu waxay ku dhisan tahay taqliid waxay ku dhisan tahay ufuq dayiqa oo majaalka ay aaminsan yihiin mooyaane xalaqaadka mooyaane iyo macaahidda sharciga mooyaane ummaddan sidii loo islaaxin lahaa hamigeeda ma hayaan dowladda meesha joogtana hadba wixii meesha ka soo baxay in lagu nasiibsado la iska barakeeyo duruusta iyo masaajidadaasna waa tii suufiyadoo kale suufiyada haddii loo nabadgeliyo ziyaaradooda iyo xadaradooda iyo xoogaagooda haddii dowladdu ay wax u siiso khalaas wixii la doono ha la sameeyo ilxaad kasta iyo gaalnimo kasta ha la keeno danka mala tiibaad moodaa iyagana inay ka soo gashay suufiyada waxyaaba badan bay iska shabahaan oo ay ka mid tahay taqliidka mashaayikhda la weynaysiinayo ee lagu talax tegayo ay ka mid tahay khumuulka iyo horumar la-aanta iyo ummaddan in la dhex galo oo lala fangalo oo wax laga bedelo oo la saameeyo